madaxda qaranka waxaa la yiraahdaa hay'adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naafduubay waxaan isaga noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sidaad la socotaanba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan. wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhigaystay oo goluhu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya. si waafaqsan qodobka 36 farqadiisa labaad ee dastuurka federaalka isu celinta eedeysanayaasha waxaa lagu dhiibi karaa si sharciga waafaqsan oo kaliya in kasta oo sharciga lagu maamulayo isu celinta eedeysanayaalka iyo dambiilayaasha uu ka mid yahay shuruucda dejintoodu tahay in la siiyo mudnaanta koowaad arag lifaaqa d farqada shanaad ee dastuurka federaalka haddana sharcigan weli lama dejin. guddiga riboorkiisu aad iyo aad u sareeyay laakiin wuxuu ahaa fawaylun lilmusalliina halkaasay uga tageen. guddiga riboorkiisa wuxuu sheegay inay sharci darro ahayd qalbi dhagax la dhiibo. recommendationkiisina wuxuu ku daray sahal cad Soomaaliya ha fiicnaato Soomaaliya ha kala leexato Soomaaliya haddaan qofna mas'uuliyadda qaadaynin say u kala leexanaysaa guddoomiye